mid ka mid ah saamiyaashii iyo socdaalayaashii ugu weynaa taariikhda dunida. Ibn Battuta oo loo arkay midkii ugu weynaa ee abid soo maray dunida, noloshiisa inta ugu badan wuxuu ku bixishay socdaal iyo soo cagamarin wadamo fara badan. Ibn Battuta magaciisa saxda waxaa loo yaqaanaa Maxamed bin Cabdallah Alawati, magaciisa oo ku caan ee loo garan og yahayna bin Cabdallah Alawata. Wuxuu dhashay 1304 wuxuuna ku dhashay waddanka Morocco. Qoomiyadiisuna waa Barbari. 29 sano ayuu ku maqnaa safar oo ku soo marayay adduunka oo dhan. 21 jir markii uu ahaa wuxuu go'aan ku gaaray inuu xaramka tago soona xajiyo. xaramka markii uu soo gutay wuxuu go'aan qaatay inuusan ku laamanin gurigiisii. wuxuu soo cagamarshay Ibn Battuta waqooyiga Afrika, bariga Afrika, bartamaha Aasiya, koonfur Aasiya iyo Yurub iyo waddankeena Soomaaliya. Ibn Battuta 1331 wuxuu soo caga dhigtay waddanka Soomaaliya. wuxuu ka soo degay magaalada Saylac. Ibn Battuta markuu Saylac soo gaadhay wuxuu tilmaamay magaalada Saylac, magaaladaas oo ku cabiray magaalo ganacsigeedu aad u socdo, magaalo oo ay iskugu yimaadeen qoomiyado fara badan. Ibn Battuta wuxuu sheegay dadka halkaa ku nool magaalada Saylac ku nool astaamahoogii ayuu ka sheekeeyay. wuxuu yidhi ummadda ku nool Saylac waa dad xoolo dhaqato ah, waa dad cawl yaryar buu yidhi siduu ku sheegay buuggiisa Ar-Rihla. wuxuu kaloo sheegay dadka Saylac ku nool inay badankoodu u badan yihiin reer miyi. wuxuu kaloo meesha ku sheegay dadkaas inay dad yaryar ay yihiin, timahooguna ay aad u cawlan yihiin. Ibn Battuta wuxuu uga sii gudbay magaalada Muqdisho ilaa uu ka gaaray Muqdisho. wuxuu ku sheegay Ibn Battuta magaalo aad ganacsigeedu u shidan yahay amba ganacsigeedu aad u kala socdo. Ibn Battuta markii uu ku noqday waddankiisii hooyo 29 sano kadib, waxaa loo sheegay Ibn Battuta in hooyadii geeriyootay 15 sano ka hor, aabihiina uu geeriyooday 10 sano ka hor. Ibn Battuta waa sahmiyaha ugu caansan caalamka ee dunida aan maanta joogno. Ibn Battuta wuxuu geeriyooday 1369 wuxuuna ku geeriyooday magaaladii uu ku dhashay ee Tengar.